kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba qodobada aan maanta warkeena idinku haynana waxaa kamid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo safaarad ka furanaysa caasimadda Israa'iil ee Tel Aviv madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo amray in la weeraro guriga agaasimihii hore hay'adda NISA Fahad Yaasin Xaaji Daahir maxaad ka ogtahay isbedelada iyo argoosiga lagu wado saraakiisha ciidamada qalabka sida ku soo dhawaada warkii oo fidsan dawladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulka Israa'iil ayaa qorsheynaya abuuridda xiriir diblomaasiyadeed oo Soomaaliya la yeelata Israa'iil sida la og yahay maamulka Israa'iil ayaa taageero weyn u muujiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo la aaminsan yahay in xiriirka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Israa'iil uu soo bilowday sanado hore ila diblomaasiyiin ah ayaa xaqiijinaya in 29kii bishan May habeenimo Axada ay Tel Aviv ka dageen wafdi Soomaaliya oo si gaar ah wakiil uga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo diblomaasiyiin Israa'iiliyiin ah oo ka sii raacay dalalka Kenya iyo Masar sida xog u cadeynayaan sargaal ka tirsan sirdoonka Israa'iil ayaa soo bandhigay sawirka diyaaradda Hal Airline ee waday wafdiga Soomaalida ah xilli ay ka dageysay garoonka diyaaradaha ee Tel Aviv mulkiilaha shirkadda diyaaradda Hal Airline ayaa laanta af Soomaaliga ee VOA u xaqiijiyay in diyaaradoodu ay ka degtay caasimadda Israa'iil Tel Aviv diyaaradda Hal Airline oo duulimaadkeeda Israa'iil ka soo bilowday magaalada Muqdisho ayaa marinkeedu ahaa Muqdisho Nairobi Kampala Urdun iyo Khubrus ayaa ugu dambeyn ka soo degtay caasimadda Israa'iil Tel Aviv iyadoo soo noqodkeedina soo martay dalka Masar hogaamiyihii u horeeyay ee Soomaaliya ee ka dega dhulka Israa'iil wuxuu ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo horaantii 2016kii safar aan la shaacin oo qarsoodiye ku tagay magaalada Tel Aviv ee caasimadda maamulka Israa'iil isagoo halkaas kula kulmay ra'iisul wasaare xilligaas Netanyahu iyo xubno ka tirsan sirdoonka Israa'iil ee Mossad sida la aaminsan yahay xiriir wanaagsan ayaa ka dhaxeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulka Israa'iil sida laga dheehan karo joornaalka ka soo baxa dhulka Israa'iil ee The Times of Israel ayaa 15kii May qoray war ciwaankiisu ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la kulmay ra'iisul wasaarihii Israa'iil Netanyahu sanadii 2016kii warbixinta joornaalka ayaa lagu dul istaagay xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulka Israa'iil in xukunka Soomaaliya mar labaad loo doorto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu wargeysku ku sheegay inay guul u tahay Israa'iil waxaana warbixinta lagu sheegay inuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hagaajinayo xiriirka Soomaaliya iyo Israa'iil diblomaasiyiin Soomaaliya ayaa xaqiijinaya inuu jiro qorshe halis badan oo lagu doonayo inay Soomaaliya safaarad uga furato dhulka Israa'iil maamulka Israa'iil oo soo dhexmaraya dalalka Imaaraadka Carabta Masar iyo Kenya ayaa qorshahan isku dubaridaya sida xoguhu cadeynayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u madhigay maamulka Israa'iil inuu walwal badan ka qabo shacabka Soomaaliyeed balse Israa'iil ayaa ku qancinaya fulinta qorshahan iyagoo siinaya adduun lacageed oo gaaraya $1 bilyan iyo inay u ballan qaadeen inay ka jihaynayaan shacabka Soomaaliyeed haatanna warka ku saabsan weerarka lagu qaaday guriga agaasinkii hore ee hay'adda NISA Fahad Yaasin Xaaji Daahir agaasimaha cusub ee hay'adda NISA Mahad Maxamed Salaad oo fulinaya amarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa weeraray guriga agaasimihii hore hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka ee NISA Fahad Yaasin Xaaji waxaa dhammaan xabsiga loo taxaabay ilaaladii Fahad Yaasin Xaaji sidoo kale waxaa la bilaqaystay dhammaan agabkii guriga yeelay haatanna isbedelada ciidamada qalabka sida iyo argoosiga ku socda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xelalka ka qaadaya taliyaasha ciidamada booliska militariga iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qoray 3 wareegto oo aan la shaacin oo xilalka looga qaadayo taliyaha ciidanka xoogga sareeyo guuto Odawa Yuusuf Raage taliyaha ciidanka booliska sareeyo Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir General Farxaan Qaroole waa markii ugu horeysay ee taariikhda xukuumad xilgaarsiin ay ansixiso taliyaal cusub oo soo magacaabay madaxweyne cusub iyadoo xukuumadda xilgaarsiinta ay ansixisay taliyaha cusub ee hay'adda NISA Mahad Maxamed Salaad madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dejiyay 2 qorshe oo lagu yareynayo awoodda ra'iisul wasaare madaxweynaha ka hor yimaada midka koowaad waa magacaabidda ergey idman oo buuxinaya booskii wasiirka shaqadii wasiirkana qabanaya
midka labaad waa magacaabida taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo xukuumadda xilgaarsiinta oo u meel marinaysa ama u ansixinaysa. Dadka siyaasadda faaleeya ayaa labadan qorshe ku sifeeyay inuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka hortagayo ra'iisul wasaare u shadaabka kula dhaga, taas badalkeedana uu magacaabayo ra'iisul wasaare aan awood badnayn hawsha socotana isbedel ku samayn karin.